kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan Abaan Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxa ka mid noqon doona nisa oo ka jawaabtay dalabkii wasaaradda amniga ee Mukhtaar Robow duqa gobolka Banaadir Umar Finish oo go'aan culus ka soo saaray qaadka Kenya Mareykanka oo bilaabay inuu dalalka dariska kala hadlo xiisadda Soomaaliya عندما kusoo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugidda Yaasiin Cabdullaahi Faray ayaa si degdeg ah ugu soo jawaabay warbixintii uu ka dalbaday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku saabsaneed xaaladda Mukhtaar Robow Yaasiin Faray ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Robow ay tahay mid aad u fiican wuxuuna tilmaamay inuu degan yahay guri ay si weyn u ilaaliyaan ciidamada dawladda Yaasiin ayaa sheegay in hay'adda NISA ay bil kasta uga baxdo nolosha Mukhtaar Robow lacag gaarayso ilaa $7,000 Mukhtaar Robow noloshiisa waxa bil walba NISA uga baxdo $7,000 si loo maareeyo noloshiisa iyo midka qoyskiisa maadaama uu xubin ka noqday al-shabaab isla markaana uu buuxinin shuruudaha isa soo dhiibaha loo dajiyay isla markaana uu waajib ka saaran yahay amnigiisa ayuu Yaasiin Faray ku yiri qoraalka wuxuu kaloo sheegay in qoyskiisa ay si joogto ah u soo booqdaan isla markaana uu leeyahay dhakhtar si joogto ah oo la socda xaaladiisa caafimaad ugu dambeyn taliyaha ayaa sheegay in sababta uu Robow u xiran yahay ay tahay maadaama uu ka mid ah xubnaha al-shabaab isla markaana uusan soo buuxinin shuruudaha looga baahnaa dadka ka soo baxayo kooxdaasi ay isku soo dhiibayo dawladda haatana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Finish ayaa go'aan culus ka soo saaray qaadka nooca mirooga ah ee dalka Kenya kaasi oo uu sheegay in lagu iibiyo degmada Wadajir Umar Finish ayaa shaaca ka qaaday in dalka laga mamnuucay qaadka Kenya ayna ka hortagi doonaan dadka Kenya iyo kuwa ka ganacsado duqa Muqdisho ayaa xusay in ay la socdaan isla markaana ay xog ku hayaan in qaadka laga soo dejiyo dhulxabeedka degmada Wadajir wuxuuna tilmaamay in ay qaadi doonaan tilaabo culus oo laga hortagayo falkaasi oo ku tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ay kala xisaabtami doonaan mas'uuliyiinta degmada iyo saraakiisha laamaha ammaanka isagoo faray inay wax ka qabtaan arrintaasi dawladda qaadka Kenya way mamnuucday Wadajir waxa dhanka xeebta looga keenaa qaadkaasi oo waxa lagu dhex iibiyaa degmada waxaana loo iibgeeyaa degmooyinka kale hay'adda ammaanka ee shaqada ku leh way joogaan hadii kontrabaan lagu iibiyo dhuumasho ahayn idinkoo iibinayo oraali ka ah maxaad sameyn kartaan dawlad ahaan haddii arsado wuxuu iskaga celin lahaa ayuu yiri duqa Muqdisho dawladda federaalka ayaa horay u mamnuucday qaadka Kenya kaasi oo suuq weyn ku lahaa Soomaaliya waxa haatan dalka soo galo qaad laga keeno dalka si kastaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo ay jawaab uga dhigaysay xiisadda Soomaaliya kala dhaxayso Kenya ee ka dhalatay dacwadda badda inta aan loo xukumin Soomaaliya haatan dawladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa ka wada hadlay xiisadda xooggan ee haatan ka taagan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya oo wajahaysa xaalad adag oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee labada dal kulankan oo si gaar ah u dhaxmaray madaxweynaha Kenya iyo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tony Blinken ayaa waxa lagu soo qaaday xiisadda haatan ka taagan filla Soomaaliya ee u dhaxaysa Farmaajo iyo Roble taasi oo saameyn weyn ku yeelatay doorashada Tony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliyeed inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah isla markaana ay soo gabagabeeyaan doorashada socoto sidoo kale wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Itoobiya ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo jamhadda TPLF kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka madaxweyne Kenyatta iyo anigu waxaan ka wada hadalnay si degdeg ah in loo joojiyo dagaalka si xal loo gaaro oladaha si xoogaysanaya ee ka socda Itoobiya sida loogu baahan yahay in madaxda Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badani ku soo gabagabiyaan doorashada ay ku dhaqmaan si isxakameyn ah ayuu yiri Blinken dhankiisa madaxweynaha wadanka Kenya ayaa codsigiisa ku biiriyay in loo baahan yahay in xal laga gaaro dhibaatooyinka dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Kenya hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo oo meeshii ugu sareysay gaaray khilaafka Farmaajo iyo Roble u dhaxeeyo oo mar kale dib ugu soo qarxay filla Soomaaliya waxaana fashilmay waan la doonay in laga dhex bilaabo labada mas'uul si loo qaboojiyo xiisadda taagan daawadayaal taas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalkii dafaaca caalamka aan idinkaga hanay wararkeena maanta waxa idin soo saaray idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Khiyaar intaan warkeena dambe dib ugu kulmi doono waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah